dowladda federaalka waxay la jirsatay China, Somaliland waxay la jirsadeen Taiwan, Amerikaanku wuxuu la jirsaday Taiwan. meeshaas ayaa Somaliland ku heshiiyeen oo ictiraaf recognition la siiyey. marka waxaan u sheegayaa Somaliland la siiyey ictiraaf waxaana u raadinaya Westernka iyo European Unionka iyo Amerikaanka. marka waxaan idin sheegayaa inaan haddaan nahay Puntland inaan ka goosano Soomaaliya inteeda kale. aniga xaaskaygu waa Irish waxaana idin raadinaysaa recognition ictiraaf sida Somaliland loo ictiraafay ina la ictiraafo Puntland. hadda waxaan soo jeedinayaa dani wuxuu xiriirku u jaray dowladda federaalka wuxuuna ka degay Addis Ababa. haddeertaana waxaan leeyahay shirkan jaraa'id aan qabanayo inaan ka goosano dowladda federaalka inteeda kale maadaama aqoonsi la siiyey Somaliland. marka waxaan idin raadinayaa ictiraaf waana ka goosanaynaa Soomaaliya inteeda kale kumana darsanayno dowladda federaalka hadda ka bacdi ictiraafna anaa idin raadinayo. dictator Xasan Sheekh Maxamuud iyo qowlaabe Xamse maamul goboleedyada dhan way ka soo horjeedaan. hal maamul kalama uusan tashan. dowladdan oo hadda soo dhisay badankoodna xiriir ayay u jareen. koonfur galbeed Ethiopia ayay tageen. danina Ethiopia ayuu tagay. haddeertaana qorshe waxaan rabnaa aan wadnaa inaan ka goosano Soomaaliya inteeda kale. damul jadiidna haddeertaa hub aruusi bay ku jirtaa. wasaaraddii gaashaandhigga hubkii casriga yaalay iyo baabuurtii gaashaamaneed ayay qaateen. marka waxaan leenahay waa ka goosanaynaa kumana darsanayno dowladda federaalka. marka assalaamu calaykum. hadda sidaas ula socda inaan ka goosanayn dowladda federaalka aanan ka mid ahaan. haddeertaana waxaan joogaa Gaalkacyo hotel Al Jazeera aan deganahay. waana sidaas ayaan idin socodsiinaya aan shirkeyga jaraa'id aan u qabtay. sidaas ula socda Soomaaliyeed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. maanta oo jimco ah oo bishu ay tahay 12 waxaan isugu nimid meeshaan la yidhaahdo Al Jazeera. waxaana ka hadlaynaa mowduuca uu soo jeedin doono ninka musharaxana ahaan jiray haddana mar dambe noqonahaya oo si u hadlaya u caraysan oo ay ka muuqato wadaninimo. walaalayaal waxaan idiin sheegahayaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa haddii dadku ay isqaadan waayaan oo isu imaan waayaan oo ururi waayaan waa kala daadanaya. Soomaalida kulligeed waxaa la rabaa meel ay joogaan inay isu yimaadaan oo isku duubmaan oo ay mid kaliya noqdaan. taa haddii la waayo waxay noqonaysaa waxaa imaanaya in qolaba meel aado inay meel aado. marka Puntland baan la yidhaahdaa inay meel aado, Banaadirland inuu meel aado, Hirshabelle inuu meel aado, Jubbaland inay meel aado. waxaas oo dhan waxaana runtii ka faa'iidaysanaya cadawga aanu leenahay oo keliya baa taa ka faa'iidaysanaya. Soomaaliya inay mid noqoto baa loo baahan yahay meel ay joogaanba oo isku duubmaan ay isku xadgudbin inaysan isku xadgudbin ayaa loo baahan yahay. haddaan nahay dadkii Gaalkacyo joogay odayaasha ahaa ku dhashay waxaan rabnaa Soomaaliya oo dhan inay mid noqoto oo isu timaado
oo kulligood ay mid keliya noqdaan laakiin qaybna si noqoto oo la xirato dowlado kaleta iyo dowlado fog mid noqoto oo la xirato dowlado kale oo ninba dowlado ka xirto waa wax foolxun waa wax dhibaato ah ilaahay idankiina waxaan rajeynaynaa inaan isu nimaadno ishaleelno oo isku mid noqonno meelaan joognaba anu intaasaan idinku darayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan salaamayaa dadweynaha meeshaan fadhiya marti sharaf mar labaad waxaan soo dhaweynayaa musharax madaxweyne sharax marka soo dhawow magaalada Galkacyo inta kadib hadii aan noo matalaya ururka dhalinyarada gobolka Mudug hadii aan fikirkeyga ka hadlo hadii ay ka goosanayso Puntland ka goosanayso federaalka Soomaaliya aad iyo aad baa soo dhaweynaya waan ku qanacsanahay raali baan ku ahay marka musharax madaxweyne waxaan leeyahay aad baa fikirkaaga kugu taageersanay halka ka sido insha Allah guul baa ku rajeynaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما توعق أتاجنا إن سوق من مشرح بركة أو سوق من مجال قلقعي أنا وأنا يرت جول كل واحد من إن سوق من وحن رمنا إن الدولة دي إن أو سيل هو أنا أقول إن إنها كورت من سومالنا وأكتر إلا أقوم صدي سومالنا وضن شراء نقطي أنا نروح على بوتلان إن سيو كلا وأن أقوم صنف مشرح أنا وادي مشرح البركة أو يقانو ما تحقق سوق منا دي waxaan rajaynayaa dhalinyarta gobolka Mudug inay u kici doonto musharaxa burka oo ah madaxweynadii oo la ogaa inuu tartamiyay oo meel hoos u ku hayo insha Allah.